السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دو جنال كيغا ayaan goob doona mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. fadlan haday igu cusub tahay soo dhawow subscribe iyo saar kamid noqo asxaabtayda dawr ila joogtana muuqaalkan like iyo saar waana mahadsantihiin dhamaan walaalaha ku xiran channel kayga meel walba aad joogtiin. waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. asxaabta cusub ee kusoo biirta channel kaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qisadii Balqiis in ay gabadhii ahayd aan rajeynaya. marka qaar dadka magaca oo qisada aan markaas ku warinayo iga dhumo, marka hayaa la ii qaban hala iigu dul qaato haddii magacii uu jiiro iga galo inuu Balqiis ahaayaan rajeynaa. waxa waaye nin yarna waa ii jooga, ilaahay ii barakeeye. buugaas aan ku qoranaa buugaygii qalinkayga. hadda qisadan waa qiso noo diyaarsan. waxaan rabaa qisadan markay dhamaatay inaan soo geliyo. way wada diyaarsantahay magacyada iyo kulli. hadda ilaahay haduu ii suurtageliyo duubi rabaa marka tan dhameeyo. marka intoo kala ku qoranaa waxa waa ligula dhagaa. haddii amar dawla muddo ninki diida dabaal ilaahay wax noogu dheelo nooma waa intaa haysan Allah siiye waxa waa farta ka saaraa. ma fahanteen waxbuu ku qorqoraa waa iska jaraa qashinka isaga daraa ka bacdi waa ka xareysana. laakiin markuu igula dhago waa iska siiyaa nuunahayga ani nuunu ii laakiin waxa waa nin weyn waaye. almuhiim markayaan la ii qaban haddii uu ii gambiyo magac qofka markaas aan ku warinaay idinka iga soo sax. muhiimadu waa qisada. waxay qaybtii koowaad ku soo dhamaatay gabadhii qisadeedu sha'niga badneed oo la yaabka badneed markii ninkii soo doontay oo aabaheed yiri adiga fagfag badanay adiga lagu siinayaa. waxay tiri habeenada kamid ah aan kii shiidka ahaa ee ilmihiisa bacaanaha aan siisanaynin aan jeclaa ilaahu gacmaheenayaan balaayo ku raadsan aan waxay tiri u cararo u dhuunte. waxaan eriyay tiri waryaa warkeen niyo xalaa lagaa rabaa anigu waa ku jeclahay adna waa aad i jeceshahay. aabana ninuu keene aabana warkiisa lama yeeli karo ee hadda iskeeno isoo doono. maxay ahayd markaan oo kale hadal waalid ma diidi karo habaar culus buu qabaa abaha ma hagaaji karo adduun aanan heli karayn ayuu ku habuunayaa. gabadhan waxay leedahay hadal waalid ma diidi karo habaar culus buu wataa. isaguna wuxuu leeyahay abaha ma hagaaji karo adduun aanan heli karin ayuu ku hamuunayaa. wuxuu yidhi Balqiisay soo dhawow abaaya anigu awood uma lihi xaaliyan inaan ku doonto ayadoo weliba nin dhaqaale haysto oo cidaada ah uu ku soo doonto lacag uu la taagan yahay. haddii aan iskeenayo waa inaan aniguna dhaqaalo wataa. hadda walaalay macaanta dhaqaale ah hadda kugu soo doontana ma hayo ee xalan kuu sheegaa. maxaa waaye xalka anaa soo fakaraayo habeen dambe isuu kaanya keen waa ku kaasaa meerka muulow cawada qabee qoorta qararafka si yacni kala goy baasho gabadhii wiilka madaxa isku geli ahamay habeen dambe aan kuu keenayaa qorshahayga. waxay tiri waa qorshe xilligaas uu ii sheegi karee wuxuu rabaayay tiri inuu ii buunbuuniyo kabacdi waa iska soo baxe. kabacdi waxaa dhacday tiri habeenkii kale haddana inaan u laabte. waxaan eriyay tiri haye walaalo macaan waa ku jeclahay adiga waa i jecesha waa isku ooyna asna waa ooyay tiri maxaa xal ah ii sheeg xalka ahayd maxaan suubinaa. wuxuu yidhi xal anaa kuu sheegaayo. wuxuu yidhi horta aabbaha maanta ani kaama doono karo sidaa hore kuugu sheegay. xalka aan hayo wuxuu yahay aniga iyo adigu inaan isla baxsano. ninka wadanka muu imaana inta muu kugula aqalgalaa maya hee ninka waxaa la yiri gabadha isagoo aanan la aqalgelin uu wadanaa oo dacwo usoo fura waa kaasaa. ama ninkii adigu soo arkaysiin maya hadda ani adaa isoo mehersayna kabacdina meherka aabbaha iyo hooyada maxaa la dhahaa ii sheeg qiyaan ninkii ku yiri wala inuu saqayr soo wadin aabbaha iyo hooyadaana waxbaa u sheegin afkaaga dhab afdaboolan dahab abbaa. waxaa suubinaya marka ninka meherkiisa waa aqbale ani adiguna isma arag gabar adigoo aan balan ku qaada inta inaad ka dushee ninka haddaa u tagana ninka markaa u tagtid waaba aad ka dhuumaneeho. waxaan suubinaynaa anigaa dad kugu xiraayo xagga markii aad tagtid qaab aa uga dhuumatidaa farsameynaynaa. macquul maahana eriyay tiri haddadaa jeceshuu yiriya tiri kasoo fakar waa suubinaynaa. kabacdiyaan fakarey tiri maalmo fakare okay yaa iri haddii kale walaale waa la iga kaa wadanaa
wadan aanan aniga soo gaari karin lagu geynaa ninaa lagugu daraa jaceylkeena aa ka midha dhalino xal aanan kaas ahayn nooma muuqdo aan qiyaano okay aan eriye tiri maalin uu yiri isu soo diyaari waa isdiyaariyee tiri saan usii kajab lahayn waa la isu soo masaafayste masaafadii markaa ka nimid waxay tiri aan waalidkiina waxba dareensiin oo aan u ahay gabar aan madaxeeda la haysan waxaa la gaaray tiri adigu muddo bil kadib inuu wiilkii iyo cidiisii soo diyaariyaan ani ninkaan ku meersana laakiin ninkaan anigu waligeen iyo allahayn meel kuma aanan kulmin gabaraan ahay waa aan isubaa okay waalidkii markay is soo diyaariyeen wiilka dhaleen waa kaasa waxaa la dhahay wiilkii la hadal telefoonka kula sheekaysto maalin hebel meherkiina dhacaaye wiilkii waxaa dhahay waxay tiri يعني لإيسو تلفون أنت ميل إجي لقى هذا السيء وأنا وضع هذا waxay tiri bacdeen wuxuu igu yiri adiga raali ma ka taa guurkayga in la ii ka joojiyo ma rabo kiyaab igu yiri tiri hadiidin dibad ii aad ka bacdina waa ka dhuumaneehe waxaan iriye tiri ha raali inuu saabo ka ahay qiyaamo badana ka bacdi waxay tiri wiilkii ama ninkii adigu xoogaa uu iga weyn yahay ama ninkii waxay tiri sidii isku waafaqnay dahab maxaa rabtaa oo jeclaalaheed meeqa garaama rabtaa meerkaaga maxaa rabtaa nolosha see ka rabtaa aniga hadda waa ku aaminsanahay gabar oo aad iyo aad u aaminsanaha tahay walaashay iga yar camala ii tahay ammaano iyo dul dhigay tiri marka waxaan rabaa aniga inaan wadanka imaanin inaan ku doonto oo mul ka soo meeriyo oo la ka soo wado oo dacwo aan ama Addis Ababa ama Kenya mid kaaga furo ka bacdina aan ku dhoofiyo war fiican waayaan ku iriyay tiri dahabaan dalbaday intaas oo garaam waxa ay waday tiri hooyadiis suuqyaan la igeeyay tiri dahaba la igu soo tixay dahab waaweyn waxay tiri la ii soo iibiye waxay tiri bushineed faraanti weyn silid katiinad weyn dhaga waaweyn adigu sad muuqdo la ii soo gaday ka bacdi hooyaday waxay tiri hooyo waa kaasa asagoo wili ku arag oo dahab ku gaday waa ninka ku bulaalo laheed waa nimkan nimca ku noqo laheed hada Allah ku barakay waayaan iriyay tiri bariye kadib meherkii la dhigay sida la isu keen mehriye aniga waxay tiri intaas aan qodanahay kii waxay tiri waa ujeeda in la imehriye bacdeen waxay tiri meher ma igu qabahay meher kalaaba igu dhaganay ka bacdi waxay tiri safarkii ahli la isku diyaari naag oo la igu daraayo oo wadankaas u socoto oo macnaha jidkii maadaama aanan ka saynin oo waxay tiri wadanka aan ku deganayo macnaha maaha isla wadanka asagoo uu joogo aan ku deganayo la igu daraayo xagga dada iiga sii horeeyay tiri Addis Ababa aaday Kenya ma aadin bacdeen waxay tiri naaga la igu daray Addis Ababa u socotay ayadana inta ninkeeda u dacwoonayay ee wadanka ku soo laabatay way noqonaysaa markii ilmaha xataa xagga uga soo tagatay naagtii la igu daray tiri gurigeeda aan habeenkii koowaad ku degtay bacdeen waxay tiri waa aan ka tagay islaan oo habaryar hooyo igu xireysay oo Addis Ababa ku joogtay waxay tiri la igu dajiye halkii nolol iiga bilaabatay waxay tiri ninkii aabahay hooyada igu dareen meeshii laga rabay inaan u sheekeeyo waxay tiri kana u sheekeeya Addis Ababa aan sii tagayaba bahal telefoon oo waxay tiri hada xilligaas aan bamidaan Muqdisho laga isticmaalayn Addis Ababa la igu keeno qurux badan oo telefoon weyn wuxuu igu yiri tiri xilli alaale iyo xilligii arabtid waa ila soo hadli kartaa lacag biil wuxuu ii soo diray tiri fooq aqliya waxay tiri kan leeba inta laf kala soo qaatay oo lacagta kan aan ka qaado ku shubto rasiidka waxay tiri Soomaaliya leeba iigu dowgal anige animaaba aw Yurublow raadinayaba kan le u sheekaya lacagta ki aan ka qaaday tiri kana ugu sheekaya naag iga qiyaamo badan show hooyo ma dhalin waqtigi waayay waxay isguraanba kan wuxuu ilaahay tiri Soomaaliya joogo حبيبتي حق مركا تكتيد سند gudaheedii arintan kuugu dhamaane ninka ka dhuumo balan waay aniga dadku xiraay waayahay aeroboortka marka tagtidba fakatax ka dheh iyo aeroboortka marka kama dhahaye dadka igu soo xir okay bacdeen waxay tiri wuxuu waqtigu isguraba xilligii dacwadeyda ay soo afjarmaysay la gaaray tiri wiilkii waa wiil aaminsan idhoofisanayo oo marwadiisa aan ahay kan oo waxay tiri aniga aan soo mehersado marwadiisa ahaan labadaba marwa oo waxay tiri mid walba dhinaciisu wuxuu ka leeyahay xaaladaada goormay ku hagaagay alxumuum waxay tiri safarkii ay soo dhamaaday waa aan dhoofe lacagtii adduunkii aan jaakad iyo wax ku soo gadalaha waa la ii soo diray
والي أم ببحية إيربورك أديس أبا ليغا أم ببحية يروب عقا دكتي تري يروب هداكو عقا دكتي وحا إسو دوني تري إلهو دوقها نغا هالي إلهو ربي ورحمانو أنغو غير نغا لرهب الباب بدا شرطيينا نقراعن ويل وحا إسو دوني تري ننكيجي وأبيه هويدا إسيستين وقروح دا سيدا لو لبسان يهي wadaadnimada ka muuqato heybada ka muuqato aadan maleysanayn laakiin meel kalaaba calanka iiga babanaay animaaba kan u jeeday tiri ka bacdi waxay tiri saas markii aan u degtaba waxaan raadiyay tiri horta gurigii haduu igeeyay tiri airportkii iga wade isla markiiba maqaayado cunno iiga dalbe cunadii aan waxay tiri meeshii ku cuno waa ka xishoohaa khiyaanotii ugu darneed inaan la maaganahana waxay tiri wadnaha ila boodboodaay kabacdiyaa waxaa dhacday tiri maamadeydii aan dhihina aabbahay walaashiis eedo wadanka joogtay tiri oo eedo labaad waxaan ku iriyay tiri habeenkii horta markuu cunadii aan cunay waxaan ku iriyay tiri laazim inaa eedo soo arkaa jirto eedo hiblaayo oo halkaas degani anaa kuu geynayo beriwaaga markuu barye wuxuu iriyay tiri seexo ninkan markaa balan waxaa jirtay cidiisa dhan asaga badankood walaalihiis iyo waalidkiis markii laga reebo isku wadan ay joogaan aniga arooskayga weyn meherkayga ka soo dhacmo Soomaaliya arooskayga weyn wuxuu ka dhacayaa Yurub oo wiilkan wuxuu rabaa arooskiisa wuxuu imaan waaye inuu Yurub ka dhaco marka aniga waxay tiri balanteena ahayd inuu san farna isaarin ani asaga nolol wadaagin ilaa arooskayga uu dhaco ilaa qudaa meel ii taale wax walba wuxuu yiri saad u rabtid bay u dhacaayaan ay soo dhawo bacdeen waxay tiri kiinayaan idinka iloobine Addis Ababa markii aan joogay oo la isoo biilaayay kaar kaliya ku roonahay tiri inaan ku gato lacaga u diri jiray tiri boqolka u dir kontonka u dir boqol iyo kontonka u dir ninka lacag fooqal aqli uu soo diri jiray tiri aaminsan marwadiis ina ahmoodo bacdeen waa la joogay wiilkii habeenkii waxaan iriyay tiri cawada ila guuree mayu iriyay tiri cawada kulama guureynaaye waxaa samaysaa eedo brian ku geeyay iska seexo waayahay guri hadde wuxuu igeeyay tiri aroosku u sii diyaarsaday oo qurux badan oo fargeeta ugu yarba aysa ka maqneen quruxda doqone waxay tiri calaf xumida ala doqone calaf xumida aduu ka bacdi waxaa dhacay tiri gurigii inta tusay ku qanacsantaa qolkan gal inta gal masquul sharaxan gal wax walbo waxay tiri waa boqolkiiba boqol aan ku yiraani ma ii muuqataahe jacayl dabaalaha meel sas calanka iiga babaaye ka bacdi waa la joogay tiri gurigii eedu subaxii ila aade ana qolaan jiiftay tiri hatta meel mawd hooyeen isna qolo jiiftay ana waa ka baqaaya iga raali noqolkaas hooyana okay waa nin is aaminsanay tiri waa nin caafimaad qabo kaal arago wiil dhalinyaraha wadaado kaal araga adigu bacdeen waxay tiri eedadii jaf ila dhahay eedadii haduu jaf ila dhahay gurigiyan waxay tiri kii isla markiiba inta aan eedadii inta la joogo maalin dhan la soo joogay ninkan shaqo aaday markii eedu gurigeeda dhigayba wuu iga dhaqaajiye aan fiiladii isku xirxiray tiri kiyan eriyay tiri wiilkii aa sheegayse oo ii imaanay ha ii imaado wiilkii waxay tiri raqamkiisa uu ii qoray kaygana wuu ii qoray wuu isoo telefoon galiyay qarar raf laftaas aan haystaa jaalafteydii waxay tiri wal ii diyaariyay la fahmo taanige qarar raf aw xaaji ana lafta isiyay tiri hatta meel dheer laf laga keenay ma aha isla habeenkii aan eriyay tiri laf isii wuu isii laf asaga labaad uu lahaa uu isii adigu bacdeen waxay tiri telefonkii markuu ii soo dhaxay wadankiina aan si fiican u kala aqoon waxaan ku iriyay tiri eedo ilaa wax laga dhaadhiciyaa la rabaaye bacna shaydaanimadeyda oo alaab yar ay ku jirto laadarad hadaad maqasho waa aniga filan inaan jilaay amale horaan gurigaas uga soo qaatay wiil halkaas ii soo istaagayo gabar ama wiil eedo dhashay oo xaafada kala taqaano ama magaalada kala taqaano ma igu dari kartaa ha eedo waa kugu daraa himlaaya ku raacayse asa gabar waxay tiri 15 jir amala oo si fiican magaalada u kala taqaano meesha ku dhalatay waxa la dhahay ordo raac baayo ordo maxaa la dhahaye ya rabbi xoolo furta gabsaarka ordo abaayo meesha oo lagu balamiye ordo u raac waayahay tiri bacdeen way soo raacday gabadhii marka u baqaahay tiri adiga lacala hadaa baxsatid ama gabadha soo celi weysaayo balaay ay ka dhacdaa isleeyahay tiri gabadhii aan weydiiyay
lacalla adiga ma soo noqon kartaa ay wax saas camal ase waxay ugu tiriye tirintay ugu qosashay anaaba ku waday adima ay soo celinaysid camal soo noqodka jidka ma ka sii camal ariye tiri haa waa ka saa ay tiri waa soo baxnay tiri kii meel ugu balamiya ayada weydiiye meeshaas ma garanee ninka yaa hagaayay tiri oo dhan ee raba inuu iwado eeda iyo gabadheeda gabadhana waa loogu dhiibe eedana markii hore la hadashay ninka dhana ifakir raba hadii ay og yihiin inuu yahay maayadaaba waxay tiri aqbali lahaayeen kii waa soo wactamay tiri ka bacdi gabadhii iyo anigoo isla soconno aan ninkii u tagnay tiri wuu isalaamay hiblaayo seetaa fiican tahaa nabad meesha markaa isku salaamnay hadda gabadhii si aan nabadii ku dhahaa la rabaaye waxaan iriyay tiri orodoo iska noqo wiilkaanaa guriga i keenaayo anigaa soo noqonaayo maxaa la dhahaaye guriyuu i geynaaye gabadhii mawaalan tahay suukuu geynaa hadda lee timida ay tiri maya dhib ma lehe orod iska noqo aan iriyay tiri kiina xaajigaygii la igu soo daray shaqadiisii iska jiraaba wuu iska baxe shaqayaanan dhihine iyo sooriyaan qaldamine shaquu jiraayay tiri nacam shaquu jiraayay tiri fasax yani ma qaadan miyaa ma ogi shaquu jiraayay tiri adigu ka bacdi waxay tiri ninkiaan sida ku raacay taleefankiina waa ii shidan yahay waa baxnay tiri wuxuu igu yiri tiri guriga horta igeeyey wuxuu igu yiri tiri wadankan oo dhanba ha iska dhiibin ninkaanaa mas-uulkaa noqonaayo hadhow sharci ma qaada kartid wadan kale oo yurubta aa lagu sii gudbinaa hee waalidkay iyo inaa noolahay inaa dhintay soo ugu sheegaa maxaa ka dhaadhicinaa naag aroos loo keenaa ahay isagana wuu ogyahay tiri qaa'inimada iyo khiyaanada asigii saaxiibkiisu isla yaqaaniinay tiri isku xaafad leebal ahaa jirin adigu bacdeen kii okeeyaan iriyay tiri gabdhuu ii geeyey marka wuxuu igu yiri tiri gabdhahan la joog waxaa cabtidii waxaa cuntintaa ka hele maxaa la dhahaa anigaa kusii taakuleynaya inta xuduudda ama wadankan lagaa bixinayo oo wadan kale oo dariska aa isku dhiibaysid kiiyaan wacayay tiri haddaan waca hadda waa soo baxsadee waa kaasaa wadan kale iska dhiibuu dhaha baa wadan kale iska dhiib ama ninkan intuusan ku sheegan wadankan iska dhiibi kartaa wadankan dhan iska dhiibayaan iriyay tiri li'anno haddaan wadankan iska dhiibo aniga waxaan u maleeyahaa ninkaas inuu iga dabahari waayo sidii ninkii inuu ibursanayo xoog camal igu guursanayo camal wadankii oo dhan aan baabiye ka qaaday adigu alcumuum waxay tiri wadankii intaanba ka bixin ilaa naag dhanoo lasoo dirsadayoo nin inuu aroos loo soo dirsadayaan ahee simikaarkii horta waa kuu dansaday mid kalaan qaate ninkii iyo eedadii say iisoo wacaayeen shawa ay iga quusteen anigii waxay tiri waalid kaa walwalaayo walaalaa kaa walwalayso ninkii lagu soo siiyaa kaa walwalaayo eedadii gurigeeda tagtaa kaa walwalayso adaaba lagu dhahaaba waxaas gaddacadaa inta u jiiftay tiri aan gabdhihii la qabsaday aqiiran waxaa la iisoo diyaariyey tiri sidii wadan kale xuduudiisa yacni la iiga mooti lahaa oo wadan kale la igey lahaa sidii aan waxay tiri adigu qaab oo aad u adagoo oo waxay tiri xilligaas laga yaabo qofka in lagu qabto xuduudo wax saas camal ee laga baqaayo ay aheede ani waa ku guulaystay tiri mana aanan ku dhibaatoonin waa aan ka tagay wadankii wadan kalean u gudbe wadankii kalean iska dhiibe kabacdiyaa hooyadii teleefon gareeye adigu 15 beri miyaa ay ugu qaadata camal hooyadii haddaan teleefon gareeye naa maxaa kugu dhacay ma waalan tahay naa intee ka baxde markaasaan iriyay tiri hooyo ma waalni aniga inta waxaa u imid oo wadankaas uga soo tego wadan kalaa kaala soo hadlaa ninkaas ma rabi ma i cajabin kan waaye balaabalaawa aase hooyadee waxay igu tiri habaar qabto ma waalan tahay ma meelaa ma rabi ka tiraahaa joogtaa ma markuu hantiduu lahaa kugu bixiyey ma markuu cir iyo dhulba kaa qariyay oo nicmo kugu shubay ma markuu anagii biil noo qoray ma markuu hadhicin hajabin dhahay naama waxaa rabtaa ishiisa inay kaa soo baxdo nolosha meelaa ka tiigsanaysi ma lahan qofka lagama gala nabsi naayaa ninkaagii u noqo ma noqonayaa irii tiri bacdeen aabbahay al igu dhiiba habaar aan kugu ogaho irii tiri aabbahay harsama doontid haddaada ninkaaga u noqo haddaad ducadayda rabtid waryaa noqo oo meesha anta u noqonaa asaaqu soo doonaayay sheeg wadankan joogto wadankaasaan bi iska dhiibay aqiiran waxaan irii tiri dhageysta ama hala ii duceeyo ama hala ii habaaro aniga bataatanbo ninkan ma igu xirmo mahee
igu xirmo ninaa i qabo aniga qofaan jeclaa waa ila fahmi weyseen haddaa idinka soo dheeraadana runta inaa idin sheego waay aabbahay wuxuu yidhi maanta hadal ay leedahay taas iigu dambeeyo yaysan isoo sheegan aniguna ma sheega dooni hooyadeeyaa ii daldalantay naa magaalan tahay naa balaayo kugu dhacda ma ku iraa naa aabbaha ma waxaa rabtaa inuu dartaa naxdin u dhinto waana ceebaysay ciddi maxaa u sheegaynaa bari kadib hadda ciddiyo waxaa u timid maadaama aniga inaan noola hal helay oo ciddaydana aysan qarinaynin ciddii cidda wiilka ka socotay say wax u jiraan wiilkii sheekadii waa la soo gaarsiiyo waxaa la dhahay gabadhii xaaladaasee gashe laakiin waxay tiri waa laga qariyey in aniga nin kale oo maxaa la dhahaa ii sheeg aan ku mihirsanahay oo nin kale aan mihirsade kaliya waxaa la yidhi gabadhii dooqeeda maada noqon cir iyo dhul haddaan war meeshii ugu dambeysay isla soo taabanay waxay tiri hadduu dhulku saas hadduu u wareegto xataa ninkaas ma rabo dooqeyga ma ahan marka wiilkii waxaa lagu qanciyey in gabadha ani ila dhalatay la siinaayo haddii midaas ay xumaatay in dee walaashay aysan qof xun ahayn ma rabiyuu yiri aniga ma rabi gabar walaasheed saas yeeshe ma rabi maya waa kuugu yacni raaligelin camalaa kuu siinaynaa waa lagu qanciyey mayuu yidhi bacdeen sidii uga tanaasul wuxuu yidhi aniga intay iga baxdana afis iyo caafimaada idiin tahay wax aan idiin qaba haba yaraatee ma lahan waa idinkaasaa gabadhiinana cafise iga tahay inay khayr ay ahaynaa laga yaabaa shar igu soo socota inuu alle iiga celinayaa laga yaabaa horteed hor alle cid aan wax u qabana ma lahan waayahay ciddi laakiin way isku xanaaqaynay tiri kabacdi hooyadiis waddankii joogtee isla markiiba waxaa loo raadiyey gabar aan isku xaafad ahayn oo meel dheerba aanan jirin waxay tiri wiilkii loo soo raadiyey qaraabadayda ahaa gabadhii waxaan ku dhahay waddanka ku aqalgalaa la dhahee guri 5 qola inta loo buuxiyey indha daraandara ilaa waxaa la yidhi mar idage allaha dago mar labaad idagase anaa isdagay qofka hal mar meeshii lagu dago hadduu ka fiirso waayo waa doqonnimo gabar kale muuwadaa wiilkan go-aan wuxuu ku gaaraba inuusan gabar dambe uusan cagaha uga qaadin muqdisho ama meeshay ku nooshahay inuusan cagaha uga qaadin oo barteeda uu ku dhaqo lianno anaa qiyaamay waxa waaye dacwo kale muddo kadib uu furo karaa laakiin waxay dhahday stop uu yidhi naag la dhoofiyo gabar yaroo qurux badanoo isku xaafad ahayn oo kaal araga loo keenay aroos indhadaraandara aniga waa arkaayay tiri waa la i tusay aroos indhadaraandar loo dhigay tiri laakiin waa goorma waa bacda aniga iyo asagu mar aan kala yacni ay ka soo wareegatay taqriiban sanad iyo xoogaa bacdeen waxay tiri sidii uu muqdisho u tagay gabadhiiuu la aqalgalay ayadoo uur u leh oo kaala arag uu ka soo tagay gurigiina wuxuu yidhi hooyadeed ayada hooyadeed gabadha yaraanay u aheyd hooyadeed oo aan ilmo kale oo maxaa la dhahaa ka yarhaysanin u soo wareegato gurigii kula nooleed hadhicina jimi shaqaala loo qabte ayadoo uur leh oo walaca uu ka soo tagay fillo weliba hadde indha daraandaro filooyinka jarmalka oo saa u holcaaya waxay tiri loo ijaaray inkastaysan ayagu lahayn waa loo ijaaray farta markaa laga qaaday 5 qoloo kaal arag hadda waxay tiri aniga waxaan isleeyahay yurubaa timida jannadii adduunyo soo caga dhigate bacdeen waa isdhiibe haddaan isdhiibe waxaan bilaabay tiri xilligaas sharciga waqtiga zaa'id kale isugu adkay ma ahayn inaan shaqeeyo waxay tiri markaa horta waddankiisu ka dhiibe kaam galay ilaan aqsi waxay tiri cala duur guluguma siinaayay kaamkii ku rafaaday ku xanuunsaday kiiyay tiri anaa lacag u diro kii nimco ilaahay hadduu kusoo hordhigo aamaamula weysid bal soo nasiib darro ma aha ma nasiib darro ka daranaa jirta waxay tiri kii anigaa 200 ceerta inta la isiiyey kaamka la iga siiyo waxay tiri 50 u dir 100 u dir waxba u dir aan u diraahay tiri meeshii ku labistaa waa dhicina jibintiisu ku nool yahay aqiiran sharcigiyaan hele sharcigii haddaan hele aabbahay horta waxay tiri biilaan ciddii intuu u bilaabay maadaama cid faqri yahay yani cid maskiino waxba aan haysan aan ka soo tagay wiilkaana biilkiisu uu goosanaa aabbahay waxaan isaga maaweeliyey tiri gabar walaashay ahna inaa xooli intuu u shaqeeyo
aan keeni doono oo ballan ay tahay cidana inaan biilaayo. aabbo waxay tiri markii dambe waa waalid wax dhalaye saa u tuugay aabbo ii duceeyey aabbo qof habaaran ma harsato aabbo ha i habaarin asuu wuxuu dhihi jiray tiri hadal mar la tuuro meedaa la soo celi karaa kuma habaaraayo afkayga waxun dambe kasoo bixi meen laakiin qalbigayga gabadhaydii dhaawacaad u daran u geysatay inuu kasoo kabsanayana u malay maayo si xun waa waxaad samaysay adigu kabacdi waxay tiri aabba sidii aan isaga sabay waalidkii aan biilaayay inaan shaqaystaan bilaabe labadeed lagoodan ku istaagay waxay tiri kabacdi waxaanba bilaabay kii inaan dacwad u furo sharciga ii soo dhacay hadda sanaduhu iyo waqtigu ma ahan dee meeshii inuu taagan yahay waa uu socdaa anoo naag shaqaysaysa oo sharcigeedii haysato oo waalidkeed leeshiisa oo waalidkeed biilato waxaa dhacday tiri kii inaan iri alla ilaah waa inaan ku keenaa waryaa qeyr beelow waa inaan ku keenaa qeyr beelow waayahay uu dhahay tiri cid wuxuu kasoo jeedaay tiri waxba aanan haysan tigidka iyo marka uu aadayo meesha dacwadda isaga Kenya keenay aan uga furaay warkuuma awooday tiri wuxuu isku sii haaya xataa nin noola alla ka dhigay nin raga alla ka dhigay dhaqdhaqaaq kuma yaqaan aniga biilaayo tigidkii anaa ka soo bixiyay waxay tiri kabtiisii karankiisa anaa gadaayo ilaa akhiiran waxay tiri guri aan markaas la isiiyay gurigii inta sharaxday adila is aroos adoo lagu aroosay adila is aroos ma maqashaaday gurigii inta sharaxday oo xawliyaan u shaqeynayay aan waxay tiri in daraandar ka dhigay aan waxay tiri kii aan eri tiri alla ilaah soo caga dhigo markaas waxay tiri dacwadii anoo gurigii sharaxday oo is dhahaaya bilhebel waa ay ku dhamaahe waxay tiri nag labadii suuligood la soo qaadi waay balaaya ku dhagan kaala adigu sheeg kabacdi aan eri tiri warheedhe waa ku imaanaye lacallo hadii oo maxaa la dhahaa aan ku imaado ilaahay ubadna kala siiyo maybe ina oo ay ii fududaato dacwada waa ku imaana waay jaf aan soo eri tiri na aniga waxay tiri Kenya waxa imid boorso buuxdo dhar u wado barafuunada atarada ragga waxay tiri wax walbo la gaamaayo imiday tiri waxaan kala maqnin aniga asagu 5 sano kabacdi waa soo dhaqaajiyay tiri Kenya imaade Kenya hadaan imaade halkii aan waxay tiri ku aqal galnay habeenada kamid waxaa dhacday tiri anigoo inta isla markiiba u riyeeshay isla markiiba walac la soo booday waxaa dhacday tiri teleefankiisa asagoo meel iska yaal asaguna mas'uul isaga jiro waxaan ku arkay tiri risaalo asagoo uu qoray oo halka idilaacide asaan waxaan is iriyay tiri caaw yaa qofku markuu walac yahana يعني هرمونات كيسة إيو أساقا دان إيو دبيعي ماهن أساقا إسكا عادفيسانبا عوضا كاو مكسيدا كان عوضا قاس انت قرو وفرت قرو كرم وحر تامرك قاليس لها يتري وجكدنا يعني وح أنا كفكرين حبايراتي ملان كبعد يا وحي تري مسقش مركو كسو بحي انت كو هذي أو وحي تري شهادتي دي سيساء وقبصدي أن كلا الله تسميت لي كدب وحيت راني جوا صا ولا ضعيف ولا كل اللي بدون تين قيب تاني يا وحيت رحت النيجرت لبلفوضو يعني ما أنت إسك عيدو جيد كرتمي إيه قف حيسكان حيفه ودنا ولا شاتي قرط وحيت لسان وجيدا يواجه كبعدي ومركو وأدكي سواي إلا نن وحالي يرحنون صدق حلم يقاني وصا أنت سوكي كوسو هالك إسكي جم كذب محا حاجة للصعة قيبت سدحة